توكلوا waxay noo socotay sheekay noo socotay waxyaabo badan baad ka soo sheekayso xilligii adiga waqtigaagii dhalinyarada aad ka soo sheekaystay waayahaagii maxaa inoogu xiga baad leedahay mar haday aad ka soo gudubtay inta aynu ka soo gudubnay waa maxay waxa inoogu xiga inoo haysaa horta waad mahadsan tahay saaxiibkayo aan mid ku sheego waxaynu ka sheekaynay sheekadii aniga igu saabsan iyo qooshkeenu garaacnay iyo duruufiye nolosheena soo maray waxaynu ka sheekaynay dhulkii ay kamaradu inala martay iyo waayihii siyaasadeed aynu goobjooga u ahayn waxaynu maanta doonaynaa sheeko la yiraahdo baasaboorkii Hoolandiiska ah iyo nuxurkeeda aynu galaynaa adaa qaatimiya baasaboorkaada waan ku wada hayga degdegin hooyaday Allah u naxariistay waxay ka timi Hooland wax yarna way ku maqnaydo sanad iyo xoogaaya baasaboor yar ku meel gaarana way sidataa way nacday markiiba Hooland inaan walaalna ka xeeyayo Hooland way nacday qof weyn oo dawaayay lahayd waxay doonaysaa inay maaragtay wadankeedii u boholiyowdo hargeysay timi baasaboorkii ay Hooland ku meel gaarka ahaana iyo shaqo weyn lagu sugayna waxay ku iibisay Addis Ababa dib yani Hooland soo arkamayno marka hooyo marka hore waxa raacay saddex ciyaal oo ninkaan walaalaanahay hooyo iyo saddex ciyaal u kaxeeyay hooyo markii Hooland timi wax adduunaba soo waxay sidataa $700 markii Hooland ka timi waa $990 $700 baan ii dhiibtay adiga lagu dhiibay ana la dhiibay iyo siisay marka inaan ku shaqeeyay oo dadkii wax soo saar aan sameeyo dabadna markii $700 la dhiibay video camiran video waxa la yiraahdaa TV kan la daawado iyo record-ka cajalada la galin jiray intaas video la isku oran jiray waqtigaas waa goor marka lacagta lagu siiyay 1993 marka in cigaal baa la doortayo siyaasiyiinta Soomaaliland oo dhan waxay joogtaa inta la majeertay ilaa 60kii xabadiba kama maqnaba dadka la yaqaan caanka ah ama international UN ta haw shaqeeyaan ama policy Soomaaliya ha ku jiraan hargeysa cid kama maqna Soomaaliland gudaheeday joogaan marka dawladda weynaa socon waxaynu u soconay baasaboorkii Hooland video baynu furannay marka sawir la Cabdi Faarax Joomo ku yaalan ku tababaran jiray kamarada ku baran jiray ayaa waxa iman jiray siyaasiyiin badan oo Jaamac Maxamed Qaalib kamid yahay oo kamid yahay Ali Jirdo oo kamid yahay Cabdiraxiin Caabi Faaraxo adigu halkii waxaan isku baranay si gaar ah Jaamac Maxamed Qaalib videogii aan furay ayuu xageeda dambe silmoogaas xageeda dambe isoo ku shiri jiray oo Jaamac Maxamed Qaalib oo markaa siyaasadii ololihii in cigaal kaga soo horjeeday ayuu markuu campaign-ka ku jiray buu xagga dambe odayaasha kula shiri jiray videoguna wuxuu ka furaa Hargeysa qofkii yaqaan kaalinta sideedaad jaamac saaxiib gaar ah halka ku noqonay laakiin daanu inay yar oo siyaasadda ku jira maan ahayne dadka videoga soo galiyo oo odaygeedii uu waxa xagga dambe u fariisan jiray wuxuu wadana daanu ma garanahay xafiis ahaan buu ka dhigtay waayo meel kale oo laambadi ka baxdaba imika 5 stars ba ka dhisan ma ogtahay mas'ala ana 5 star ha marka 5 star ku videogaas oo ha leer baxaba isagu baaba meesha ka baxayba صح markii sidaa u dhacday waxa dhacay dabadeetana in dagaalkii sokeeye dhaco inta aanu dhicin qarka soo saaray 94 ayaa waxa yimi ninkii Hooland hooyo geeyeen walaalahay caruurtiina hayay caruurtii marka labana Jarmal ku geeyay midna Ingiriis ku geeyay ninkii qaadku aad u cuni jiray Hooland qaadku free buu ahaa ku tawakhay uu noo yimi soo tawaksan dabadna nin family-ga kamid ah baa loo diray waa baliyo ninkii doono Addis Ababa ka soo kaxee Addis Ababa ka soo degay ninkii ma garanaysa dabadeetana ninkii baasaboorkii markuu soo kaxeeyay Addis Ababa ka soo baxeen ay naasireed marayaan ayuu ninkii xaruusanay marka baasaboorkii kala haray kii loo diray baa kala haray inan kale oo family-ga uunina gaariga waxay saartay baaska oo warninka xaruusanay baasaboorkiisa u daayayo maya uu isiyo naasireed buu ku haray isagoo baskii Addis Ababa ka soo baxay naasireed buu ka qaray ninkii walaalo wuxuu ku yiri gabantiiba ku risii kaxeeyo reerkii u geey isla halkii ku haray isla bartiiba ku haray marka tabciisu baasaboorka inuu ku dhoofu doonayay isagu dabadna ninkii xanuunsanayay halkana la keenay in yar kadibna dagaalkii sokeeyay 1994 Hargeysa ka qarxay burca ka qarxay ayaaba qarxay rabasaan uu qaxnay videogii kuraasidii wixii waan ka tagay cajaladihii iyo screen-kii iyo record-kii iyo generator-kii aan haystay wixii waa la qaxay gabadhan jaar hayno gaari oday aan hayo caaqil ahaan jiray baytari loo jiray gaarigiisa ayaa ay qaado fooliyo bagaaraha la fuulayo
markaanu diiwaangelintii dadka qaxoontiga lagu diiwaangelinaya rabaso tagnay marka hay'adu abakor ma joogaan daroorna ma joogaan labada abakor iyo daroor bilaa samcad weeyaan xagga hay'adaha waayo brigi migista dhacay ayay boobeen baqaaradii iyo wixii rabasana wax xaaji cabdiwalaaba joogayo mushaharka ay isagoo la bixinayo ma la sinaaw ugu yimi markuu migista dhacay iyadoo mushaharkii dadku qaataan oo shaqaalihii Itoobiya ku macarrey Soomaalida shaqaynayso oo system dawladeed ka jiro rabaso marka rabaso waxa loo aqoonsaday magaalo qiimo badan leh daroor iyo abakorna waxa loo aqoonsaday magaalo shufto waayo isbitaaladiina way boobeen raashinkiina way boobeen ilaa dhaamka biyaha laga qaatay wixii biyaha loo dhigayay marka waxa laga xukumaa rabaso ayaa laga xukumaa labada kaamba markii meeshii aanu galnay Ethiopiankii markii ilaahay soo degay dadka dawladda diiwaangelinaya magaca halkeed ka soo qaxday maxaad ahayd waxaan alaabtii asitina waa la soo degay marka hay'addu laba hay'adood baa meesha jooga hay'adu waa hay'adda qaxoontiga qaranka ee Ethiopia oo wax diiwaangelinaysa number 1 ka hay'adina waa UNHCR oo hay'adda qaxoontiga caalamiga ah marka isla shaqaynayaan marka bawr toostooda lagu keenayaa xaradii waxaanu galay hay'adda qaxootiga qaranka Ethiopia gaariga waa toos u galay marka dadka kale inay ku soo biiraan lama ogole gaariga uu deegaar baa laga qabanaya dadka soo degaalay dadka qof baa loo qoraya anigu xasitaa record video iyo TV-gi iyo cajalado iyo game-ka lagu ciyaaro oo bariga aan laba aqoon game-ba muu jirin Hargeysa marka game-kan dadku ku madadaashaan labada gacmood inta la galiyo meesha TV-ga la galiyo labada gacmood lagu ciyaaro game-kaas aan haystaa dabadna Ethiopia marka kale laabta asto waxa kale oo sitaa siyaasiyiinteena waa weyn ee Soomaaliland caanka ka inay walaaliyiin baastoolad weydii waa amaana taana waa sitaa nin dhalinyaro oo waxba la socon baarahayo cidna ka baqan maayo ninka game-ka iska ciyaaraya Ethiopiankina waa shacbi oo askari meesha ma joogto waa shaqaale hay'adeed dabadna waxay walaadeen anaga maadnala degi kuwii Ethiopiankii dadka qorqoraya qaxoontiga ee hay'adda u shaqeynayay iyay qolbaan ku siinana anaga nala joogo dabadna waayay baan kooriyo alaab maxay kugu yani adiga waxa arkeen cajaladahan asitay iyo game-kan asitay waxaas ka helayaan ayay interest gareynayaan ayaa la igu soo dhaweeyo oo qiimo gaar ah baan u leeyahay dabadna meel baa la idajiyo qol baa la siiyo waxaan ka noqday qaxoontigii waan ka nasiib badnaaday intii gaariga saaray ana ka nasiib badnaaday si gaar ah la soo dhaweeyay markii halkii aanu abaar joognay ayay nimankii kaararka markay qorqorayeen ayay waxay igu maamuseen aniga in kaarar dheeraada la qoro 15 kaar raashinka lagu qaadan doono 15 kaar ka ugu yari 10 la yahay kuwa kalena ay ka sii wada badan yihiin oo ilaa 20 la ku jiro ayay ii qoreen iyagoo aniga igu maamusaya kaararkii markay ii qoreen anigu markaan in dhalinyaro abaanahay ee magaalan ku dhasho Hargeysaan ku dhashay leyd iyo laami iyo waxaan garanayaa de maartay noloshii magaalada taali meeshan aanu nimino waa tuulo yar oo leyd lahayn oo biyo nadiif lahayn oo maartay de miya ma jeclaysanaya marka waxaan doonayaa magaalo marka aniga jigjiga guriga ma dhisna cidna kuma lihi tir dhabana iyo herar toona iyo aad sababa toona ti magaalo ahaan baan ugu dhawaanayaa cidii ma joogto marka inaad ka tagto waan hiye kacayo miigaan ayaan doonahay dabadna markaan muddo joogay waxa ila hadlay marka hore qoladan hay'adda qaxootiga qaranka ee Ethiopia RRA la oran jiraan Maleynaya ayay soo dhaweeyay oo kaararka iyo qoray ninkii haystay UNHCR saddexda kaam rabaso abakor iyo daroor rabaso u saldhiga ninkii haystay saddexda kaam ayaa oo burhani la oran jiray ayay guuri aniga maadii soo guuri marka waa keligi iyo gabadh raashinka u karisa iyo ninka gaariga wada saddexdoodaas weeyaan ninka gaariga wadana waa Soomaali Xasan baa la oran jiray sheekada waan ku soo sheeka dhaafay in yar baan kugu celinayaa dibe markii aan Hargeysa laga qaxin inan baa eerikaaba ka timi sawirlihii aan ku tababaray jiray Cabdi Faarax Juma ku yaalay ayaan isku baranay inantii si qeyr la caadiya ayaan soo dhaweeyay imkaaniyaadka u baahnayd oo dhan waan u qabtay dabadeetana inantii xiriir fiican ay halkan ugu dhex maray dabadeedna markii aad sabab inantu aad sabab socotay moogtay markii aad sabab tagtay bay warqadii qalinka lagu qori jiray warqadii soo qortay telefoon xagga hore hoose ayay igu soo qortay wati waayadii hore waraqaa la soo diri jiray ma garanaysaa inantii eriye macaan walaal macaan warqadii telefoon kumba muhiim ah
haddaad Ethiopia timaado telefoonka igala soo hadal hargeysa telefoon laga hadlaa may lahayn oo bilaa telefoon hargeysa foon yaa lagu hadli jiray foon yaa dadna markii aan rabasa joogay aan ku noqon rabasadeennii gaariga UNHCR rakaal baa saaran rakaalkaasi ilaa Suudaan buu la hadlaa rakaalka saaran rakaalka waa foon yaa dhalinyarada casriga hadaan garanay waa halowdan lagu hadlo ee aynka weey dabadeedna waxa jira in la xiriiriyo foonyaha iyo telefoonkan caadiga ah ee dhegta la saaro waa la xiriiriyaa dabadeedna lambarkii warqadii inantii barigii ii soo dirtay ay Hargeysa nabad ahay ayaan ku wari ninkii gaariga waday oo nin Soomaaliya ah xasan loo jiro reejigjiga ayaa ku xasan oo lambarkan xarunta Addis Ababa ee UNHCR iyo xiriiride waayayo xasan afxabashiina uu garanaya moogtooda foonyana isaga ku hadlade tarakaalkii buu kala hadlay dabadeetana ninkii xarunta Addis Ababa joogay uu garanaya xasan oo midba koorkiisa la hayaa moogti xasan rabaso markii uu la hadlay Addis Ababa wuxuu ku lambarka ay garaac lambarkii buu garaacay inantii baan wada hadalay inantii baan u sheegay halkan joogo inaan Addis Ababa joogo inaan ay ka ahay marka sheekada waxa ku jirta ninka baasaboorka kala haray family-gu ahaa nin kaloon walaalanahay ayaa isna cararay wuxuu warqad halay qoro intaanu cararin ninkii baasaboorka si aan uga soo reebo warqad aad idigu ku dhantihiin oo leedin baasaboorka ninka isaga dhib warqad ba marka loo qoray wuxuu tagay sababa labadii nin baasaboorkii bay isku qabsadeen marka nin substation meesha ku haysta oo isna family-guna oo substation waxa la yiraahdaa qayb yaro telefoonada kamida oo laga hadlo oo gal labada gal saddexda gal afarta la oran jiray qaybtaas substation la oran jiray oo telefoonkaad soo kireysanaysa dabadeetana halkaas dadka ka sii kireynaysa substation ka yar ayaanu markaa ninkii joogay iyo Khadar Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mar soo maray nimankii ba erga u galay oo baasaboorka ninkan de walaalkii warqad baa loo soo qoray siibay ku yiraahdeen ninka baasaboorkii u bixiyay ninkii marka hore ninka waalan baasaboorka kala haray markii la yiri ninkii walaalaha hayeen baa yimaadna family-gaad ka mid tahay iska sii baasaboorkooda uu siiyay isagoo farku ka qaadan ninkii aan walaalaha ahay baasaboorku u iibiyay halkii ku iibiyay bartii ku iibiyay ninkii xanuunsanayna ee baasaboorkan lahaana rabaso ayuu joogaa dabadeedna waxa dhacay anigu subax walba sheekada Addis Ababa ka socota anuu rabaso jooga waana masaafadee 1200 kilomitir meel ku dhow Addis Ababa rabaso ilaa inta de waxa weeyaan sheekada waan la socdaa maalin subaxii markuu waagu bariyo xarunta Addis Ababa anagu rabaso joognaanu garaacnaa way naga qabataa inantii bayna xiriirisaa fooyihii baan kala socdaa inantii waxaan u diray inay soo basaasto oo soo ogaato sheekada baasaboorka sidii ay ahayd bay igu sheegtay warbixintii kooban baasaboorkii ninkii inay labadii nin isku qabsadeen in loo garqaaday in baasaboorkii ninkii walaalaha loo dhiibay in ninkii walaalaha baasaboorkii iibiyay inuu lacag $8,000 siistay oo te waaga joogtay in $8,000 bad la siiyay badna la hayo sharcigaana wuxuu dhigi jiray mariga sharciyada la kala iibsanayo baasaboorka marka laga iibiyo lacagta laguma wada siin jirin qofku markuu duulo ee uu baxo ayaa baaqiga kale la siin jiray waan ku gartay baasaboorkana ticket in lagu soo jaro oo ticket qof loo soo jara waxay u qaadanaysaa de ninka wajigiisa la eegaya ninka kale wajigiisa la eegi jiray moogti dabadeetana waxa dilaal ka ah ninka substation ka haysta Khadarna Mahdi Guuleedna waa joogaa dabadeetana muxuu ahaa baasaboorkii markii ay sidaa u dhacday ee warkii oo dhameystiran in la iibiyay la ii sheegay decision baan qaatay marka aniga mid baa i sheegtay in dhalinyaro caruura baan ayo reerku rabasuu yaala walaashay baa joogta walaalahay baa degan oo laba aan walaalanay baa degan oo reerihoodii degan hooyadii baa joogta in aan la socodsiyo information kan aan anigu kaliya hayo oon idhaahdo subax walba Addis Ababa oo iyaga xitaa la hadashiyo keligay baa go'aankan iska qaadanaya ninkii Ethiopian ka hayo UNHCR ta haystay wax ku TV-gan iyo game-kan iyo waxa laga iibso
wuxuu yiri mishiinka uma baahni mishiinka yahay baan ku hore mishiinku waa kii leerkan u shidanayni lacag 1600 riyaal oo aad u fara badan ayaan ka qaatay saaxiibna gaarana waanu noqonay kaararkii qoladii kala ii samaysay ee hay'adda qaxootiga qarankuna oo 15 kaar ahaana 15kii kaar inan reerka yaga ah ayaan ku qarsadan ku yidhi laakiin de markaa raashin lagu qaato lama keenino waa kaarar cusub waa la sugaya in kaararka raashin lagu qaato waan iska tegey حاجات خبطت Addis Ababa dee sheekadan baasaboorkan u socdaa Addis Ababa markaan tegey ninkii loo diray kuma qabsan ninkii loo diray horta soo baasaboorka ninka si sharci darro uga muu qaadan ninkii aan walaalaha hayna soo ninkii kuma qabsan anna isagii baan qabsaday isagii baan ku baasaboorka ninkii lahaa uu jooga waa nin xanuunsanaya dee awoodu ku iibiyo male waa khalad weeye ninka sharcigiisa inuu ku ciyaaro ma aha markan Addis Ababa sidaa u galay inantii waxaan ku nin Etoobiyaanka si fiican u yaqaanay diyaari oo luqadda Etoobiyaanka ku hadla inantii nin luqadda Etoobiyaanka ku hadlo fiican bay keentay ninkii baan la heshiiyay waxaan ku la heshiiyay 100 riyaal na siinayo oo dee 100 riyaal waa lacag badan buu waxaan ku station place-ka Addis Ababa ku yaala iga turjinadu iska aam station-kii buu geeyay askar taagnayd baan la hadlay marka waxaan ku warnaan walaalano xanuunsanaya baasaboorkiisa halkan la isku haystaa lagu dhacay baasaboorka in lagu baxo ma rabo de waxaan doonaynaa inaad raacdaan dadkan la soo xidhaan baasaboorkana ka qaadaan oo marka ninkii anigu aan doono iyagoo dadku xidhan ninkii baasaboorkan lahaa aan keeno safaaradda Holland baan wada tageynaa ee Addis Ababa Soomaaliduna waxa way nacabtay wuxuu dhan ba kootarbaanaho nin wax dacweynaya iyo sharci darro lagu dhoofayay iyo waxa way nacab yihiin oo inay dadka maaragtay la ogaado khadadkooda aad bay u nacab horta waa la dhibsaday sidaan imanka Mareykanka ka socota Minneapolis oo kale qofka wax sheegada wala nacab yahay moogti waxba yaan kugu daalanine askartii laba taxi baan soo kaxaysanay sub station-kii baan weerarnay ninkii sub station-ka haystay baan weynay mahdi guuleed kana fadhiyaan ugu yim waa ninkii ma joogo de mahdi guuleedna isaga shaqo kuma la arinta in adeerkii ruma weeyaan laakiin ninkani waan weynay waan isla adeerkii labadaba waa adeer waan iskaga tagnay u dheer yaro ku yaalay raas agtiisa oo Soomaalidu lahayd talo maxaa loo jeedaa Soomaali tara magac buu lahaa ma garanayo mas in qalda laga yaabay gaar lahaado u dheerkii baan weerarayo ninkii aan walaalahayn baan ka helay waar qabta baan ku waa ninkii baasaboorka iibiyay waa walaalkay askar xabashiya waxa la leeyahay ninkan caawa soo galay askartii Etoobiyaanka wato waxyaaba xajiibka nin maanta soo galay oo haddana ciidan Etoobiyaan la socdaan xagee ka nastayba kabiba ma bixinay lacagtii yareeday TV-ga iyo game-kii aan siiyay waxaan ku qarash gareynayaa ninkii baan saldhigleeyay lama xirin halkan la fadhiiso baasaboorkii keen baa lagu yiri baasaboorkii show ma bahaya ninkan waa ninkan iibiyay lacagta horumarinta qaatay ninkii sub station-ka ayaanu weerarnay ninkaas hayay buu askartii waxaan ku wari ninkii waxa ku leeyahay markuu meesha yimaado sub station-ka nala soo hadal isagoo sub station-ka joogaan anagu imanayna isagaanu kaxayna waa xidhaynaa waan basaasay waan qariib baan ay moogtay adigu ninkii baan helay ninkii baa gulaad askarta joojiyo arinta waynu dhamaynaynaa dacwadda inaga daayo wuu ii waramay ugu ninkan walaalka baasaboorka iibiyay ha iibiyay ninka isla reerka uu buu ka iibiyay muxuu ahaa baasaboorka tigirkii baa loo soo jariyay shirkadii tigirka Ethiopian Airlines ayaa loo soo jariyay nin jareera ayaa loo dhiibay waa imisa gacmood ninkii jareerka ahaa isna tikriib ku sii xiray tikriib diyaarada ka shaqeeya ayuu ku sii xiray ninkii jareerka ahana tikriib uu dhiibay show tikriigina baasaboorkii mar hore isagu iibsadayba uu dhameystayba waxba gacanta waxa baasaboorka waa la baasaboorkii Holland baa la yiraahdaa baasaboorkii Holland ayaa la yiraahdaa ninkii jareerka ahaa baan arkay galabtee markaa waa sheeko dheer waan koobayaay meesha masaariiftu way naga goday dacwadda wadnay ninkii aanu meesha markaan halkaa marayno
reerkiina aanu cid soo noqotaba ay waayeen in labadayadan aan walaalaanahay ninka baasaboorka iyo anigu meesha ku joogno ayaa ninkii waalaa in walaalahayna xanuunsaday hooran ka yimid baasaboorkan lahaa iyo ninkii noogu weynaa iyo inantii noogu weynayd ku xigtay saddexdoodii wada socdana Addis Ababa la keenay waa kan ninkii baasaboorka lahaa soo siiyay baasaboorna lama hayo ma aragta annaga dabada waxa noo jooga ninkan oo kaliya ninkiina waa ka soo xanuunsaday waa qurbana casad sababo oo qof dabada looga soo diray wax mooyaane qof kale kuma noolaan karo cid wax noo soo dirtoonu garaacanana Arab iyo Yurub iyo Mareykan Arab iyo Yurub iyo Mareykan meel wax looga soo diraya ma jirto ninkan oo kaliya naga maqnaayo ninkan waa ka soo xanuunsaday waatan baasaboorkii la isku haystaba cid wax dabada naga soo taaraysa ma jirto bisaarad baanu baqtiga xalaan loo noqday inaanu saaxiib nahayo aan laba dumar guursado labada dumarba sawirayay markaan Hargeysa joognay oo ganacsada ahay nolol fiican ku noolaa oo isna bisaaradani haysa mid ka daran hayso ayaa maalin lagu yiri warniyo nin aan isku reernahay ayaa Ras Hotel ku jira marka qiyaas ahaan hadaan Ras Hotel halkan joogno intuu jira ku qiyaaso waa ilaa iyo abaarso Hargeysa ilaa abaarso in la ayaan isu jirtaa maalin hore wax ma aanan cunin anagoo maalintii wax cunin ayaan waalna marideen muddo saacada aad soconaysaa oo lugaynaysaa gelin hore aanu tagnay iyadoo labadii malaha ku dhowdahay Ras Hotel ba ku socota Ras Hotel ninka u shaxaa tagaan isleen abarsana waa ka soo lugaynaysaa waa inta masaafo abaarsa ilaa Hargeysa in leegaa waanu nimi samiin baanu ka lugaynayna Ras Hotel baanu lugaynayna masaafo aad fog bay isu jiraan dabadeedna markaanu ninkii baanu weynay markuu ninkii weynay qadadiina deeshalana wax ma cunin qadadiina waa ta soo gashay quraacdiina ma soo cunin ayaa waxaan u nimin askartii gadaraho meesha u tumashay yimi oo lacag fiican qaadan jiray mala 10 hablood u taagan yihiin saliyo ninkaas isku reerbaatiina waa qoladiina hay garanayna maxaan ku nabaan ku arkayna inuu reerkayga waa naloo sheegay halkeen uga bilownaa warkaacada yada dhaantay naga tagbaan war dad xishoonayna waanu hayno labadayadina labano qabli ayaanu nahay ninkii aanu saaxiibka ahayn marka ninkii weynay ayaan iska tagnay lug baanu dib ugu sii qaadnay ilaa iyo samiin halka ka timaadeen Ras Hotel waanu ka baxaynaa ninkii baa markay casar gaaban tahay inuu deegaajo lugta qaadi laana inuu deeqdahayna ayuu aad u murugooday saako nacasaha war maanta ma ku sheega waxaad ka tiiradan kaga baxdo suulaha imisaad nolol maxaan soo marto hilib dheelaa imisa maalmihii baad maskaxda gaarsiinaysaa maalinta musaarada ka saar si shidaal ku noqoto sidii baanu maalmihii musaarada xasuusanna maalmihii dhariga sidii baanu ku xusnay sanuga maartii horta magaranaysa arooskaagi maalinta caanka sida nugu sheekeynay laba aroos u lahaa baana sawirey moogti ayaanu samiin ayaanu ku soo gaarnay samiin ninkii uu horeeyay aragnay ayaa nin wanaagsan hayo laba fuul buu noo qaado horta nafta ku qaboojina anagoo laba cisho xunay halkii hadaan joogno ayaa ninkii jareerka ahaa ee baasaboorka loo dhiibay in isna ninka tikriga u soo dhiibay baan israacnay maalin ninkii tikriga habu diiday wuxuu leeyahay halkan aynu ka helayna halkan kale wuxuu sidaa waa mukhallaso baasaboorro badan oo dad leeyihiin mid baa dheer maariga dabadeedna balkeen kanan eego mid baan siyaasad kaga qaaday tii saacada badan mala subaxii baanu gaariga raacnaa gelin damaanu maraynaa marka kii service station kuna uu nala socdaa halkan ii yara joojiyo iyagoo wax ku mashquulsan waan ka siibto waan baxsado baasaboorkii dheer maarig baan la baxsaday hoolan iyo dheer maarig ay isu dhintaan baan leeyahay dawal iga hor yimiyo inagu hoolan bayno hayna dheer maarig maxay noo keenin ka baasaboorkiisa si baa ligu keenin helina waan helimaynaa aynu u aarnee dheer maarig hoolan aynu ugu aarnee baasaboorkeena inoo haya may wala iga hor yimi nin yarna waanay markaa anigu baasaboorkii nimankii waa loo celiyay caradii baan halkii ninkii service station ka haystay oo islaamo waaweyn iyo odayaal waaweyn ayuu cimrada u soo sameyn jiray ninku waa wadaad aad sheekh loo yaqaan soo ninku sheekhna maahe suuqa hoos ku jira hablahan aan la xidhnaa ayaa basaasnimadiisa iyo shaqadu waar habeen oo dhanba habeen ma mid yar buu qaataa sheekh maaha ninku
dadkuna sheekh weyn bay u yaqaanaa waa ninka substation ka haysta ninkii baan ku warniyo arrintiina waxba lagama qaban karo lacagtii bar baan cunno de walaalkii waa kan bar iibiye baasaboorka $4,000 buu cunay keena baa leeyahay taadii baasaboorkii la heli lahaa de lacagtan keena baa leeyahay ma hayno baaqigiina nalooma hayo xalay baasaboorkii ma haynee baaqigii hadii lagu siin lahaa sheekada waxa nagula jira dad ninkii baasaboorka laga iibiyay oo san dhinacyo darafka haysto hablahoodii baa lacag dibadda uga soo dirayo waa nin la jabhadihii ahaayo iska yar intuu xabadi ku dhacday lugta ka dhutinayo lugta naafa ka tahayo waa nin la doonayay in la dhoofiyo kiino wuxuu leeyahay wixii nabadda isku xaafad baa tiine inaad dhacaysaan lacagtii ama baasaboorkii ninkaygii rabasay iska joog lahayde ninkii xanuunsanayay halkii buu joogaa waxaan mar kale sameeyay inaan ninkii substation ka yiraahdo looliga iga bixi 7 riyaal waxba lagu raaci jiray baska meelaha dawladda 7 riyaal macaal dhexda waxaan ku cuno ma hayo nin wanaagsan oo reer Hargeysa ahayo reer Kolchanaha oo saaxiib ahayn oo familiyadii lacagta laha ka soo jeeday ayaa masaariifta iga soo bixiyay oo baska ku kulanay waxaan ku soo noqonay rabaso maxay noo sii yaalay rabaso maxay kaga tagnay kaararkii baa ku yaalay Soomaa sanad baynu maqanay store dhan oo buuxo raashina store dhan oo buuxa oo raashina oo kaararkii ay dhaleen aniga ina turun bay sug reerkayagana cid waxba kama oga dumar waa baraaraha ragna waa baoode tabadeedna kaar inantii baan in yar u dhiibay kaararkiina waan ka qaatay raashinkiina si fiican oo lacag fiican baa leega siistay kaararkiina waan wada iibiyay reerkayaguna kaar kaliya leeyino abaal iyo ajar bay ku qabaan haddana xitaa xabad siin lahaa cidna waxba kama siin in la yara abaan oo 20 jira lacagtii baan jeebada ku shubtay baadhi to baadhi baan jigjiga ka bilaabay jigjiga marka Ethiopia dib ugu socdaa ni haddana meeshii aad saban doonayeen tago kolba baadhi to baadhi jigjiga markuu iga dhamaaday heerar baan haddana baadhi to baadhi ka bilaabay heerar baadhi to baadhigeedii markan ka xiisa dhacay haddana diiri dhaban baadhi to baadhi ka bilaabay diiri dhaban markan xaraaradu iga soo degtay baan aad sababa tagay hambadii yaraydan igu sita oo lacagtii wax shaar iyo surwaal iyo kabaan ka iibsaday mooyaane wax yar ka sii qiiqayaan baashana busaaradii iga soo martay aan ogaaday ayaan yiri war marka family-ga yagi ninun baa naga maqan iyo hooyo inta yidi kala caadi sababa ayaanu joognaa boqol shilin oo dabada looga soo dirayaana ma jirto cid inoo ma joogto harheede har meeshan dadka kuwana ku filanay ninkan xanuunsanaya iska tag waa iska soo noqday jigjigaan degay in yar hadaan jigjiga joogay ayaa ninkii xanuunsanayay nin ay Europe wada joogi jireen ayaa soo degay oo tisabo ninkii ba kulmeen lacagtii halka ay lagu jiro hadda warinaad kale lacagtii wax la timaad sawir la timaad ati sawana baadhi to baadhigi aan de ilaa jigjiga ka soo bilaabay umaade ku jira cid waxba kama siin tabadna waan iska soo noqday anigu كل وردني كحنوسني يدي كاتكو هلينا ياهي مع السلامة dib ugu noqotay ها كيو ريال لو دري lagu yiri ninka ordo soo kaxeeyay sababtani ba ka dhacday ee baasaboorka ninka kala haray isagu Liibiyo lagu yaacayo Liibiyo tagay halka hadaan joogno ayaan anigu iska soo noqday magaaladu dawaa magaalo nacaso qof dabada jooga waxyaabahan ku soo arkay markaad sabaxa kamid ah aan iska wada noolaano inaan isqabin ayaa laga yaabaa inanka waliba inanka lacagta loo soo diro inanta maaha inanta lacag loo soo diro hablay guri la galisay iska caadiyo waa qof lisan oo dhaqaalihiisa asturay in hablaha ku badani waxay ahay hablaan meel saydan oo kale meel laba loogu maqnay hablaha waxay iga fiican iyaga wala guursanaya wala ka haysanaya hablaha laga haysan jiray meesha kartay waxa si naaguli jireen habluhu in ay la guursado oo halkaas soo dabeetana qaar badan oo laga guursado Europe la geeyay Mareykan iyo Canada ba ayaa badan dabadeedna intaan la guursan aan waxba haynin nin dhalinyaro ah oo isaguna qorshihii u xariisan yahay oo reerkoodii wax u diyaarinayaan dabada ugu maqan yihiin oo lacag fiican loo soo diro ayay leedaan iska wada noolaano isma qabaan qol yaro intan leeg ayaa lagu jiraadee raashinkay u karinaysaa maryahay u maydhaysaa mooji wax dhacaya dayna goorma hayne aan iska wada noolaana loo bixiyay marka hebel iyo heblaayo way wada nool yihiin wax diinteena oo gashayna ma
ونفل عارجي مركا دي باهدو qofku markuu baahdo wax badan bay ku kalifaysaa dhulkoodina dagaal ba ka socdo kuma noqon karaya aan wada noolaano sheekada la yiraahdo ayaan sabab ku arkay iyo dadka baahan dad intay qurba ka yimaadaan Yurub iyo Carabtaba u soo tumasho tagaya waxbayaan kugu sii dheeraanina waxaan dabadeetna markii nolosha ciriiri noqotay ida naga Carab iyo cajab naga caawinaysa aanay jirin wax noo soo diraya aanay jirin telefoon mar baan garaacay inaan arooskiisa Hargeysa sawiray ayaa igu yiri markii arooska aan dhameeyay barigii Hargeysa nabad ahay wuxuu iga codso ninkaas imaaraad ku joogay moogti aniga wuxuu iga codso waarniyo waxba ma Hargeysa markaa dhulkayga baan joogay waxba ma baahnay alxamdulillah ninkii baan u baahday markan qaxoontiga noqday nin markaa ay wax soo haayeen ayaa lambarkiisii hayo wuxuu yiri ninkii waa kii barigii wadiga abaarka ku lahaa wadikii waa kii ku yiri warninka inoo garaxniyo maanta waa la inaga baahnay ma jirto ninkii baanu garaacnay hooyadii baa telefoonka inaga qabatay imaaraadka dirqi baanu ku soo helay $20 minute ila soo hadal baa la soo jiray ila soo hadal qofka awoodu ku hadlo nimcadan maanta la haystaa ma jirin correct call Europe oo jirto isaga qofka xitaa lacagta laga qaadi jiray lacagta lagu hadlayo tani waan ku dhufanayo hooyadii baa mirarkii naga khasaaray anigu isaga u baahan bal weyd la soo hadliyo waa nala soo hadli waay dadaan doonay bay noqdeen aaro $20 wax badan $20 riyaal ee Itoobiya wax badan bay noo qaban karayaan haddana mid baan dirqo ku soo xaaday maalin dambe $20 kale ku dhufano isagii baa naga qabtay أرياره سيف معان أو ونكسم ونقول هذا والله صاحبك ما أنت هالكيت شو جاد الصوا ما أنت وانا جي كل واحد بوم بهنيني والله ما أنت صاحب وبهن وحنا صادر توحل بقى أبى البانو قبنا طبعا هتراوي بقى حليلي أنت لقى مستفرية إماراتك يبحث السعودي أو معارة سوا بلا كبا السوري أيوش حاتي بس نجيب هذوية هتراوي markaasuu ku warmiyaad hadraawi arkayna bilaa kaba la igu soo saaray diyaar soo barka kaadu tahaydani iyo xaaji soo degay isla tiisa taymood tabtaasaan marayna ninkii imaaraadka joogay dib bano lama soo hadal wali calool xumadii baan u hayaa moogti markaan xasuustay imaaraadka la soo hadal qaadaba ninkaasaan ku xasuustaa dabadeedna وارادو ماشي قربنا عسي اتصابيم كده وهرجيسه iska noqotay atsabay bariga qurbanna xasbay waan ka soo baxay in baa nooriga iga soo bixi waxaan meesha isku baranay yigib musicianka ahay Cabdinaasir Macali Caydid Allah u naxariistay waa halkan isku baranay Cabdinaasir baa maalintii anagoo habeen wada socono tariiq marayna ayu xabashi sakhraasani dhagaxna la hor istaagay dhagax buu la hor istaagay Soomaali qushaasha waan tiraahday gareemiso iska maslaxnay adoo dad baa markii dambe naga soo baxayo habeenkii Cabdinaasir igu yiri Hargeysadii dagaal ku socda wallahi ku noqonaya uu ku noqday horta isagu markii dambe waa aniga ugu iman doonay isagu soo dhaweyn doono dabadeedna halkii baan iskaga imaan jigjigaanigoo jooga ayaan on wali degin oo deegaan noqon ayaa liigu yiri ninkii wallaahideen waa la waayay markaa ninkaa xanuunsanayay jigjiga joogay saddexan walaalanahay inantii iyo laba inan baa la jooga ninun baa u yimi Yurub ay wada joogeen kii baa wax yar siiyay baskii aad soo raacay ilaa Diridhaba alaanaga waa 35 sanadood baan marani waa ilaa adigu waa 3 sano horta waytay dib oo dabadaysan ninkii jaan iyo cirib meel uu dhigay looma arag dabadna Diridhabaan cararay dhaqaale iyo imkaaniyaad aan ku baadi doono ma haysto gaari baan bariyay baabuurtii qamandiga soo qaadi jirtay gaariga waa igeeyay Diridhaba jigjigaan markaa ka raacay moogti marka sidaas soo taagay shalay toole ayaan arkay halkaas u maray bal nin lagu leeyahay halkaas u maray ninkii ugu dhawaa family-ga ee ugu soo dhawaana anigu noqday meel walba waan marayo itaalkeeguna waa wax iska koobano aniga waxaan baska lagu raaca ma haysto dib oo dabadaysan ninkii meel uu jaan iyo cirib dhigay miyuu dhintay miyuu nool yahay dadkana waxaan ka codsan lahaa ninkaan sheegay 3 magac buu lahaa markii koowaad hooyadii Maxamuud bay u bixisay Maxamuud awaadan oo cabdi markii uu dhalinyarada noqdayna nin awow ahoo ayuu la shaqeeyo aakhira loo jiro aakhira loogu magac daro aakhira loo yaqaan markuu Yurub tagayna Sharmaarku la baxay 3 magac buu lahaa
marka cidii maanta nolol ku ogi haday nolos halka naga arkayso dir dhaba anaga noogu wardabaysay naga caawiyaan u leenahay sheekadii baasaboorkii hoolan halkaasina ku gabagabeynina waa kamaradii nabadda tawakkal aadan